munaasabadda Ciidul Adha ayaa maalintii koowaad laga ciiday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe inkastoo ciidihii hore ay ka bedelan tahay ciidan taasina loo sababeynayo in fatahaadda webiga Shabeelle iyo roob isbiirsaday saameyn ay ku yeesheen magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa munaasabadda Ciidul Adha maalintii koowaad hambalyo u diray eheladooda iyo qaraabadooda munaasabadda ciida. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan salaamaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta waa maalin ciid waa maalin farxad waa ciid Adha waxaan rajaynayaa Soomaali muslimiinta dhan meel kasta ay joogaan inay ka ciidaan Soomaali khaas ahaan Soomaali inay maanta ciidayso ayaa maanta aan u jeednaa joor si fiican laga ciidi Soomaalida Ilaahay isku soo dugo qalbigooda san Ilaahay isku soo aadiyo wasiirka xogeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Anab Axmed Ciise ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hirshabeelle munaasabadda Ciidul Adha oo maalintii koowaad oo maanta ku beegan. Alxamdulillah awalan dhammaan ummadda islaamka waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak inta kadib alxamdulillah maanta waa maalin weyn oo Ilaahay nagu manaystay oo ah maalin muslimiinta ay faraxsan yihiin dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciideeda dambe Ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cumri dheer. waa maalintii Ciidul Adha waa maalin muslimiinta qaali ku ah waxaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan hambalyo leeyahay ummadda reer Hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo meel kasta oo joogtaan hambalyo ciideeda kale Ilaahay barwaaqiyo bashbashan ugu gaarsiiyo Ilaahay midaan cibaado fiican iyo amal saalaxa Ilaahay nasiiyaha nooga dhigo Ilaahay midaan nabadgelyo ku helnaha nooga dhigo ummadda reer Hirshabeelle waxaan leeyahay gaar ahaan biyaha dhex jiifta waxaan leeyahay Ilaahaygi subxaanahu wa ta'aala dhibaatada ha idinka qaado Ilaahay wadana abuurtana doonkaaga biyaha nagu fidnaynin Ilaahay hana halaagin ummadeena reer Hirshabeelle gibigood waxaan dareemayaa webiga Shabeelle uu maro inay tahay meesha maanta biyo baxada iyo fatahaadda ay dhex jiifaan shacabkeeni waxaan leeyahay Ilaahaygi subxaanahu wa ta'aala adinkana biyahaas iyo qabowgaas Ilaahaygi subxaanahu wa ta'aala ha idinkaga gargaaro dawladda Soomaaliyana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aan baaq u dirayaa ciida daraadeed waxaan leeyahay dib u soo fiiriyo ummadda reer Hirshabeelle biyaha dhex jiifta shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee aad madaxweynaha u tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane fiiri ummadda reer Hirshabeelle ciida daraadeed u xasuuso Ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadeena inuu barwaaqo iyo bashbash nagu gaarsiiyo ciideeda kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa inaan ku sii daro waxaad ogtihiin anaga reer Hirshabeelle wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo meesha la yiraahdo u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxa ka jira waxaan aad ugu faraxsanahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska Hirshabeelle oo maalmahan kormeero badan iyo muxuu ahaayay waday dadaalo nabaddiidka looga hortagaayo ayagana waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiina sii wada dawladda Soomaaliyana waan uga mahad celinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dadaalada ay wadaan waa ugu hambalyeynaa. Assalaamu calaykum. Liibaan Cabdulle kulli caam wa antum biqayr ciid wanaagsan.